وسلامتين أصحابتا kusoo dhawaada barnaamijkeena one by one oo kusoo qaadano wararka iyo warbixinada ugu dambeeyay waxaana eegi doonaa wararka ugu dambeeyay ee kooxda Manchester United oo dalab ka gudbisay weeraryahan cusub Manchester United oo isha ku haysay xidiga kooxda Barcelona iyo sidoo kale kooxda Liverpool oo la sheegay inay ka baxday tartankii loogu jiray ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Ingiriiska iyo sidoo kale kooxda Borussia Dortmund ee Bellingham. haddii aad ka heshin muuqaalka fadlan like saar subscribe-na dhex channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe sidoo kale haddii aad jeceshahay inaad soo booqatid baraha kale ee aanu ku leenahay baraha bulshada waxaad ka heli doontaa linkigooda khaanada description-ka. ugu horeynta haddaynu ku bilowno kooxda Liverpool ayaa la sheegay inay ka baxday tartankii loogu jiray ciyaartoyga Bellingham inkastoo toddobaadyadii ugu dambeeyay iyo sidoo kale bishii January ay sheegayeen wararka qaar in ciyaartoyga Bellingham uu yahay ciyaartoyga ugu horeeya ama ciyaartoyga koowaad ee diiradda u saaran kooxda Liverpool sidoo kale ay la soo wareegi doonto kooxda. haddaba waxaa soo baxay hadda warar sheegaya kooxda Liverpool inay ka baxday tartankii loogu jiray ciyaartoyga Bellingham ayaa la sheegay inuu ahaa ciyaartoyga ay doonaysay inay kooxdu ku soo xoojiso khadka dhexe balse waxaa jira ciyaartoy kale oo ka jaban qiimahan marka la eego sidoo kale ka fudud waxaana ka mid ah ciyaartoyga Mason Mount oo u ciyaara ama khadka dhexe uga ciyaara kooxda Chelsea. ciyaartoyga Bellingham oo u ciyaaray kooxda Dortmund 3 xilli ciyaareed ayaa waxaa la filayaa xilli ciyaareedkan inuu noqdo xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee ciyaartoyga Bellingham uu ka tagay kooxda Dortmund iyo sidoo kale horyaalka wadanka Jarmalka ee Bundesliga. ciyaartoyga Bellingham ayaa waxaa tartan ugu jira kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub. ciyaartoygan oo jiray 19 sano ayaa waxa uu awooday inuu dhaliyo xilli ciyaareedkan 10 gool dhammaan kulamada uu ciyaaray kooxda Dortmund haday noqoto kulamadii Champions League iyo sidoo kale kulamadii horyaalka iyo koobabkii kale uu ciyaaray kooxda Dortmund. haddaba waxaa la sheegay sida uu cadeeyay tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp inaanay kooxda Liverpool aanay la soo wareegi doonin ama ciyaartoyga Bellingham aanay la soo wareegi doonin maadaama ciyaartoyga Bellingham kooxda Dortmund ay doonayso inuu ku fasaxdo qiimo aad u sareeya sida lagu qiyaasay ciyaartoyga Bellingham qiimihiisu waa 130 milyan oo euro arrinkaas oo adkeynaya kooxda Liverpool inay hal ciyaartoy ku bixiso qiimo gaadhaya ama qiimo ka badan 1 milyan oo euro. haddaba sida la sheegay ama sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta ka agdhow kooxda Liverpool mas'uuliyiinta iyo sidoo kale mulkiilayaasha kooxda Liverpool ayaa doonaya inay mar kale soo xoojiyaan kooxda Liverpool sidoo kale suuqa si fiican u galaan balse lama oga inay tahay ka hor xagaaga iyo sidoo kale kadib xagaaga ama bisha January ee sanadda soo socda. haddaba maadaama uu kor u kacay ama aad u qaaliyoobay ciyaartoyga Bellingham oo sidoo kale ciyaartoygaasi ahaa ciyaartoyga koowaad ee ay doonaysay kooxda Liverpool inay khadkeeda dhexe ku soo xoojiso ayaa hadda waxaa la sheegayaa ciyaartoyga Mason Mount oo ciyaaray kooxda Chelsea inuu yahay ciyaartoyga bedelka ah ee u dhaqaaqi doonto kooxda Liverpool. ciyaartoyga Mason Mount ayaa hadda waxa uu ku jiraa 12 bilood ee ugu dambeeyay heshiiska uu kula jiro kooxda Chelsea sidoo kale waxaa joogsaday wadahadalka u dhaxeeyay ciyaartoyga Mason Mount iyo kooxda Chelsea kaasoo ku saabsanaa xilli ciyaartoygan heshiiska dhinaca u soo bandhigaysay kooxdu ama sidoo kale kooxda ciyaartoygan inay ka dalbato inuu saxiixo kooxda Chelsea heshiis cusub. haddaba ciyaartoyga Mason Mount haddii uu go'aansado inaanu heshiiska dhan u sameyn kooxda Chelsea sidoo kale ciyaartoygan inuu ka tago kooxda Chelsea waxaa la filayaa ciyaartoygan inuu ku taageeri doono ama ay la wareegi doonto kooxda Liverpool maadaama ciyaartoygan uu ku jiro 12 bilood ee ugu dambeeyay heshiiskiisa sidoo kale aad uu doonayo tababara Jurgen Klopp kooxda Liverpoolna ay doonayso ciyaartoy ay lacag kula soo wareegto ama ay kooxdu doonayso inay ciyaartoy kula soo wareegto qiimo aad u sareeya kadib markii uu aad u qaaliyoobay ama qiimihiisu uu kor u kacay ciyaartoyga Bellingham oo lagu qiyaasay ama sida ay doonayeen mas'uuliyiinta kooxda Dortmund in ciyaartoyga Bellingham maadaama heshiiskiisu ka dhiman tahay 1 sano ciyaartoygan ay doonayeen mas'uuliyiinta kooxda Dortmund inay ku fasaxaan qiimo gaadhaya ama qiimo aan ka yareyn 100 milyan oo euro sidoo kale sida la qiyaasay ciyaartoygan qiimaha ay ku fasaxi doonaan mas'uuliyiinta kooxda Dortmund ayaa waxa uu dhaxayn doonaa 120 ilaa 130 milyan oo euro. dhinaca kale kooxda Manchester United ayaa isha ku haysa ciyaartoyga khadka weerarka uga ciyaara kooxda Barcelona ee Ansu Fati. ciyaartoyga Ansu Fati ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartoyga isha ku hayeen kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub tan iyo markii ciyaartoygan uu ku soo biiray ama uu ka soo baxay akademiyada kooxda Barcelona sidoo kale ciyaartoygan uu ku soo biiray kooxda koowaad ee Barcelona. haddaba ciyaartoyga Ansu Fati ayaa waxaa hoos u dhac uu ku yimaaday qaab ciyaareedka xilli ciyaareedkan inkastoo ciyaartoygan xilli ciyaareedadii hore uu fiicnaa sidoo kale uu ka mid ahaa ciyaartoyda ugu fiicnaa kooxda Barcelona balse xilli ciyaareedkan waxaa ku yimaaday ciyaartoygan hoos u dhac aad u weyn sidoo kale ciyaartoygan waxaa batay dhaawaciisa xilli ciyaareedkan. haddaba ciyaartoyga Ansu Fati ayaa xilli ciyaareedkan kulamada ugu badnaa ee uu ciyaaray kooxda Barcelona waxa uu tababara Xavi ciyaartoygan ku soo gelinayay bedel balse ciyaartoyga Ansu Fati waxa uu awooday inuu dhaliyo 7 gool sidoo kale uu caawiyo 3 gool dhammaan kulamada uu ciyaaray kooxda Barcelona haday noqoto kulamada horyaalka iyo sidoo kale Champions iyo koobabkii kale.
haddaba kooxda Barcelona oo dhaqaalaheedu aad u hooseeya ayaa waxaa la filayaa kooxda Barcelona inay ku khasbanaan doonto inay iibiso mid ka mid ah ciyaartoyda ugu qaalisan kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado ama xagaaga soo socda ee sanada 2024 waxaana la filayaa ciyaartoyga Ansu Fati inay suuragal tahay kooxda Barcelona inay ku iibin doonto qiimo aad u sareeya balse sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinada ka agdhow kooxda Barcelona mas'uuliyiinta kooxda Barcelona waxay doorbidayaan inay iibiyaan ciyaartoyda kale ay ka mid yihiin ciyaartoyga Rafinha iyo sidoo kale Ferran Torres halka ay ka iibin lahaayeen ciyaartoyga Ansu Fati sidoo kale Barcelona waxay doorbidaysaa inay iibiyaan ciyaartoy aanay wax lacag ah ka soo bixin sida ciyaartoyda Frankiisi iyo sidoo kale ciyaartoyga Christensen oo labadan ciyaartoy waxay kula soo wareegtay kooxda Barcelona hab lacag la'aan ah kuwaas oo xagaagii la soo dhaafay ku soo biiray kooxda Barcelona ciyaartoyga Christensen waxa uu lacag la'aan kaga soo biiray kooxda Chelsea halka ciyaartoyga Frankiisi uu isagu kaga soo biiray kooxda AC Milan lacag la'aan haddaba sidoo kale waxaa suuragal ah in ciyaartoyga Ansu Fati lagu daro oo maadaama ciyaartoygan uu ka soo baxay akademiyada kooxda Barcelona sidoo kale waxaa la filayaa ciyaartoygan maadaama uu jiro ama uu gaadhay 20 sano inuu wakiilkiisa Jorge Mendes uu soo bandhigay kooxo waaweyn oo kamid ah kooxaha ka ciyaara qaaradda Yurub sidoo kale waalidka ciyaartoyga Ansu Fati ayaa ku booriyay ciyaartoygan ama ku adkeeyay inuu ka tago kooxda Barcelona haddii aanu ka helin waqti ku filan oo uu ciyaaro intaa waxaa sii dheer ciyaartoyga Ansu Fati inay isha ku hayaan kooxo kale oo ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxaana kooxaha ka mid ah kooxda Arsenal iyo sidoo kale Liverpool iyaduna waxaa jirta in la sheegay ciyaartoyga wakiilkiisa Jorge Mendes iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kooxda Manchester United inuu u dhaxeeyay ama inay kulmeen oo ay ka wada hadleen mustaqbalka ciyaartoyga haddaba kooxda Manchester United oo ka faa'iideysanaysa xaaladda ciyaartoyga ayaa isku day doonta inay la soo wareegto ciyaartoyga Ansu Fati haddii uu go'aansado inuu ka tago kooxda Barcelona inkastoo mas'uuliyiinta kooxda Barcelona aanay doorbideen ciyaartoygan inay iibiyaan oo haddii ay kooxda Barcelona ku khasbanaato inay iibiso ciyaartoy ay noqon karayaan ciyaartoyda ay iibinayaan ciyaartoydii sida lacag la'aanta ugu soo biiray kooxda kuwaas oo kale ciyaartoyga Christensen iyo sidoo kale ciyaartoyga Frankiisi xataa waxaa taasi dheer kooxda Barcelona haddii ay doonayso inay iibiso ciyaartoy ay qiimihiisu gaadhayso 40 ilaa 50 milyan oo euro inay noqon karayaan ciyaartoyda khadka weerarka uga ciyaara kooxda Barcelona ee kale ah ciyaartoyga Ferran Torres iyo sidoo kale ciyaartoyga Rafinha isla kooxda Manchester United oo baadigoob ugu jirta ciyaartoygii bedel noqon lahaa ama weeraryahan cusub sida ay kooxdu heli lahayd kadib markuu ciyaartoyga Cristiano Ronaldo uu xagaagii la soo dhaafay ka tagay kooxda Manchester United sidoo kale kooxda ay ku fashilantay inay la soo wareegto ciyaartoy weeraryahan ah kaasoo bedel rasmi ah u noqon lahaa ciyaartoyga Cristiano Ronaldo ayaa hadda waxaa la sheegay kooxda Manchester United inay dalab ka gudbisay ciyaartoy ama sidoo kale weeraryahan cusub haddaba kooxda Manchester United ayaa waxay dalab rasmi ah u gudbisay kooxda Frankfurt iyagoo doonaya ciyaartoyga Kulumane ee u ciyaara khadka weerarka uga ciyaara xulka qaranka Faransiiska iyo sidoo kale kooxda Eintracht Frankfurt maadaama ay ciyaartoygan isha ku hayaan kooxo kale oo ka ciyaara horyaalka Ingiriiska iyo sidoo kale qaaradda Yurub ayaa waxaa la filayaa ciyaartoyga Kulumane inay kooxda Frankfurt ku dalban doonto fasaxidiisa inay ku fasaxdo qiimo gaadhaya 88 milyan oo euro haddaba ciyaartoyga Kulumane oo kamid ah ciyaartoydii ka soo muuqday koobka adduunka ee sanadii 2022 ka dhacay wadanka Qatar ayaa ciyaartoygan sidoo kale waxa uu awooday inuu u dhaliyo kooxdiisa Eintracht Frankfurt 19 gool sidoo kale uu caawiyo 12 gool arrinkaas oo soo jiitay kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ayna ka mid yihiin kooxaha PSG Bayern iyo sidoo kale kooxda Manchester United haddaba ciyaartoyga Kulumane oo kamid ah ciyaartoyda ama weeraryahanada ugu fiican horyaalka wadanka Jarmalka ee Bundesliga ayaa ciyaartoygan waxyaabaha kale ee taydiisa u raacsan ayaa waxay tahay in ciyaartoygan da'diisu ay aad u yar tahay oo uu jiro 23 sano oo kaliya haddaba mas'uuliyiinta kooxda Manchester United ayaa u dhaqaaqi doona ciyaartoyga Kulumane kadib markii ay ku adkaatay la soo wareegida labadii ciyaartoy ee markii hore diiradda u saarnaa kooxda Manchester United kuwaas oo kale ah ciyaartoyga Harry Kane iyo sidoo kale ciyaartoyga Victor Osimhen haddaba kooxda Manchester United waxaa ku adkaatay in la soo wareegaan ciyaartoyga Harry Kane iyo sidoo kale ciyaartoyga Victor Osimhen oo labada ciyaartoy maadaama ciyaartoyga Harry Kane ay da'diisu jirto 30 sano waxaa la filayaa mas'uuliyiinta kooxda Tottenham inay dalban doonaan ciyaartoygan inay ku fasaxaan qiimo gaadhaya 100 milyan oo euro sidoo kale ciyaartoyga Victor Osimhen oo la filayo xil ciyaareedkan inuu kula guuleysan doono kooxda Napoli horyaalka Talyaaniga ee Serie A sidoo kale arrinkaasi uu ka dhigan yahay inuu xil ciyaareedka dambe kooxda Napoli kala qayb qaadan doono koobka Champions League ayaa waxaa la filayaa ciyaartoygan inay adag tahay kooxda Napoli inay soo fasaxdo ciyaartoygan
haddaba arrinkaas ayaa ku kalifaya kooxda Manchester United inay dalab ka gudbiso ciyaartoyga khadka weerarka uga ciyaara xulka qaranka Faransiiska iyo sidoo kale kooxda Eintracht Frankfurt ee Colomani, balse ciyaartoygan waxaa la filayaa inay qiimihiisu gaadhayo ama lacagta ay kula soo wareegi karto kooxda Manchester United inay gaadhi karto 88 milyan oo euro, maadaama ay jiraan kooxo kale oo kula tartamaya ciyaartoygan sida ay ula wareegi lahaayeen ayna ka mid yihiin kooxaha PSG iyo sidoo kale kooxda Bayern. ugu dambeyntii waxaa la filayaa in kooxaha Arsenal iyo Chelsea ay tartan adag u gali doonaan ciyaartoyga ama daayarka khadka weerarka uga ciyaara kooxda Atletico ee 18 sano jira ee Vitor Roque. ciyaartoyga Vitor Roque oo jira 18 sano ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda loogu hadalhaynta badan yahay wadanka Brazil. sidoo kale ciyaartoygan waxa uu awooday kooxdiisa Atletico in xilli ciyaareedkii la soo dhaafay uu dhaliyo 4 gool. ciyaartoyga Roque ayaa sidoo kale waxa uu caawiyay xulka qaranka Brazil ee 20 jirada, isagoo ku caawiyay ama ka qayb qaatay guulashadii ay ku guuleysteen Copa America 20 jirada, isagoo awooday inuu dhaliyo 6 gool 8 kulan oo uu ciyaaray. haddaba ciyaartoygan tan iyo markii uu ku guuleystay koobka waxaa ka mid noqday ciyaartoyda loogu hadalhaynta badan yahay. sidoo kale waxaa jira inay doonayaan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ayna ka mid yihiin kooxaha Barcelona, Arsenal, Chelsea, Newcastle United. balse bishii lasoo dhaafay waxaa jiray wadahadal u dhexeeyay mas-uuliyiinta kooxda Barcelona iyo sidoo kale ciyaartoyga oo ay doonayeen kooxda Barcelona inay la soo wareegaan, balse kadib markii uu joogsamay wadahadalka u dhexeeyay kooxda Barcelona iyo sidoo kale ciyaartoyga ayaa hadda kooxaha Arsenal iyo Chelsea waxay isku dayi doonaan inay arrinka ka faa'iideystaan, sidoo kale ay isku dayaan ciyaartoygan sida ay wadahadal ula furi lahaayeen maadaama ciyaartoygu uu ka mid yahay daayarada. sidoo kale ciyaartoygan ay da'diisu tahay 18 sano uuna ka mid yahay ciyaartoyda aadka loogu hadalhaynta badan yahay wadanka Brazil, lana filayo ciyaartoygan xagaaga soo socda inuu ku biiro koox ka mid ah kooxaha ka ciyaarta ama koox ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub.